qisada yar ila dhageysta haweeney ayaa ninkeedii baa dhintay ciidada markay ka baxday 4 bilood iyo 10 habeen markay u dhamaatay iyo xooga ay joogtay ayaa waxa lagu yiri maad guursatid baa lagu yiri adaay waxay tiri xaga ka dhageysanayay ustaad Aisha waxay tiri da kasta oo gaadhay ha isdhiibine guurso raguba ayagoo konto jiray guursaa sama qodobka waan jeclaystay waana adkaynaya qodobka waxa weeyaan ustaad Aisha run bay sheegtay waana ku celinaya ani muxaadaraadkay waxa kamid ah muxaadaradaadu 40 jir raaliya oo rabbigeeda taqaana waa raaxada adduunka ragow yaan la moogaanin marka islaamaan xogaa suuq u sameynayay samaha islaanti way weynaatay islaanti li xaruura dhashay toddobaad gabadh ayadoo yar ay Soomaalidu iska dhaadhicinayaan gabadhi way weynaatay marka waxaan rabay inaan dhaho gabdhow meydaan weynaanin islaam 70 jirta ayaa su'aal la weydiiyo la yiri haweenku goormay guurka ka quustaan jawaab fiican bay bixiso waxay tiri kuwa iga waaweyn hala weydiiyo waxay soo dhiibay marka adigu anigu yani diyaar baan wali ahay kuwa iga waaweyn weydiiya idinkuna sababta qaybaad ku leedihiin markay carruurta yaroo weynaadaan baad garbasaa intaad qaataad wareeg bilaabi ood odagii dayici soo saas maaha markaasuu dee asagana meel kale raasanaya gabadhi qisadeedii baan idiin wadee waxay tidhi ma waxaad u malayseen zawjkayga inuu dhintay weli waxaan indhahayga ku arkaa oo weli ila nool muusoodkiisii iyo dhoolla cadayntiisii baa weli arkaabtay baarkada ayadoo laga dhintay iyo weliba muusoodku soconaya qodobka kale oo furaha waa alxub walmawadda labada qodob jacaylku iyo mawaddadu waxa weeyaan waa laba qodob oo suuratu ruum aayada 22 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala baynakum mawaddah wa rahma mawadda ya rahma labadaas waa in guryihi laga helo oo mawaddaduna waxay tilmaamaysaa qofkan inuu qofkan u ilaaliyo waxay dhahaan almawaddah والرحمة رحمته تمام مودة يا الرحمة وقتي ورقد بالسوستة مركب واسوء إن شاء الله قرينا وحاكم المودة يا الرحمة تفصيل عجيب بكليهن مودة يا الرحمة على كل حال وحاب مفتاح نصين كرا بمعنى قرينا وإنه تشعيل كم موقضه قرينا وإنه الرحمة أي كم موقته مركب نباتات نعضه إلا سنة حريسته ليس جعلاده ليس سودويه وحاكمده فرياشة إيو خطوات مهمة التسامح ولا ليالو هل أرين هدان عاوة إذين شيغو ما إسكود يسارين عن دقن جلينو أرتا وحن شيغينا قبضا دقن جليسة ونودو عيننا إلهي نوزيانيو وحاسميننا جمعة والبا أما أسبوع والبا بل والبا أسبوع جمعة ومدن بيس إن شاء الله نص معه قرآن معه حديث معه سنين بين غرتها 3 أو 4 غرتها لكن أنا بس قياسي بل والباق جمعة أبدا بيسة عرور تاضي كل أنت صار كل مسو هي حاجة جاجا وعلى صدر مع الموضوع عمرنا أبات تجي وحكى السنة صار أحمر كرا هو يدا وحلقة الشيغان كرا أبها وحلقة الشيغان كرا عرورتها وحلقة الشيغان كرا عرورتها والدك وحكى الشيغان كرا وحاربنا إنانو إسعفينه وإله بايري إسعفية عاو هدان منه سيان إنتنرو إسرسعنا لو يرادو ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وسيدة الدنيا دا أنا سوتش الله إننا آخر الجنة وقالوا مركاسا واللي إسعفين ورقد بالله صحيحي إلا إسعفيي جمعة الله قبل الله بيشن سوسعتا وغير هرله وأضيء إسلام هرله وأبي عرور هرله وعرور يا أبا هرله هل كاسر نولش مركا الله قبل الله يا قدم كان نبي تسامح يا ديار
caawa markay guriga ku noqoto gabadhee dhahaysa odaygeeda caawa laga bilaabo intaan isqabnay oo dhan caawa aniga ilaahay dartii baan ku cafi bas caawa haddaan dhinta aakhare wax laguma hayso car gabadhee gacanta taagaysa car labadii gacmoodba gabadh baa taagtay laakiin inta badan ma taagina fiiriya يعني waa dhaarsantiin sama odayaasha u dhaarsantiin soo saas ma aha waayahay qodob kale oo cajiiba qabsada adeerayaal qodob kale oo la yaab leh oo cajiib la qabsada qodobka waxaa la yidhahdaa tanaasul in laysu tanaasulo xaq aad lahayd inaad xagga dhigto adigu iithaar inaad naftaada ka doorto waxaad adigu arkayso intaad xagga dhigto inaad walaalka u tanaasusho waxaa kaloo asagana jira المرح كفتا وحلا ينادى والمزح قريهنا يانا كدغن قبور يانا كدغن وإن قريغا لغو دخ كفتامي كارو مر وإن أضيغا لاسكا قفصدو كفتن بنان أو وحبا داوعيني مر وإن حاجيدا للا كفتمو مر وإن عرورتا للا كفتمو نبي قال لك كفتمي جري حاسس كيسا صلى الله عليه وآله وسلم waxaan soo ogaanay aabba iyo hooyo isqalaba reero isqabta oo wada hadlinba malaha caruurun bay dhalaan say ku dhalaan Allahu a'lam wal ilmu inda Allah sheeka kama dhaxayso farxad badan kama dhaxayso waxaad moodaa inuu guriga geeri iyo meey dhax yaalo maya see lagu abuuri karaa inaad ninkaaga iyo adiga aad wada sheekaysataan markaad rabto inaad ninkaaga la sheekayso oo ninkaaga aad oo ma sheekeeyo raggu aad oo ma sheekeeyaan gabdhaha sheekada badan inta badan waxa dib loo xiso hal hebelow hal su'aal baan waa iloobe hal su'aal hadda adigu dhaanto ixsuus maalintii ugu horeysay oo is aragnay xageer marta isku aragnay awwal yawm waxaan u malaynaa markaan saas leeyahay dad maskaxdooda ka shaqaysiinaya anigi iyo adiga maalintii u horeysay oo is aragnay xageer isku aragnay odaygi markuu ka shaqaysiinaya ha wallahi halkaas ku arag ma halkaas bay sheekada halkaas ka bilaabay laba su'aasha labad waa maxay horta waa ma ka shakisnahay hebelow aniga iyo adiga horta ma ada jeclaaday mise anaa ku jeclaaday kolba gabadhu waxay dhihi a'uudu bil ada jeclaaday inay gabdhuhu ma ogolo in la dhaho anaa ku jeclaaday dagaal bay ka xigaan hatta hadda iyadu jeclaatay dagaal bay ka xigtay inuu anaa ku jeclaaday marka taa ragga la iskaga daayaa waxa ilaa horta ma anaa ku jeclaaday hadii qof la jeclaado waa tahay hadda markaas sax sama hadda ku jeclaaday qof la jeclaaday ma ogtahay faaduma ma ogtahay ilaahi amarkii maalintii aan ku bartay een isguursanay iyo maanta inaan maanta ku jeclahay horta ma ogtahay maanta ku jeclahay kitaab quraan soo qaado ku dhaaran karaa soo qaad ها ما حدا عيب تقانا يويدي هذا شيكدي بان ودا لا سويا هذا اني اي غاوشي سببت ما قرن مالنتي ما انا اقونين waxaad gasho waxaad gudo nadaafadaada ee cuntadaada qaraabada ilmahaaga ma baan aqoonin maanta waxaan bartay yaani wax walbaan ka bartay maanta kuma qoori karo waxaan ku sheegi maanta إلهي بانوغو شكرنا يا إلهي مالنتا إكاتوسي gabadhaasi ninka ma iloobi kartaa ma iloobayso sheekada halkaas looga bilaaba sheekooyinku way badan yihiin haddaad rabto inaad ninkaaga sheeko bartana muraayadii baad hor istaagi muraayada u sheeke adoo sheekadii muraayada isoo fahmay oo meeshaad qosolka gelin lahayd iyo meesha aad xoogaa hadalka adkayn lahayd adigoo bartay markaa imo insha Allah tabaaraka wa taala waxa kamida madaxa amaanta kamida waxa kamida ixtiraamka labada qof inay is ixtiraamaan waxa kamida sida oo kale an-nadaafatu wal anaaqa guryaheenu waxa weeyaan nadaafadu waa ajiib yani waxa waa ustaad Aisha idin kala hadlayso waan maqlayay laakiin si hoos waliba in looga sii hadlo mawduuca nadaafada gabdhaheena Soomaalidana waa lagu amaanaa oo aad u yaqaanaan nolosha in la cusboonaysiiyo ragana waa sidoo kale inay nolosha cusboonaysiiyaan ayagiba aabayaala reerka banaanka mar la geeyo beeraha la geeyo hoteelada la geeyo haday awoodu ay dhan tahay maxaa la yiraahdaa in qaraabada la soo salaamo gurigi la nool hadalka la bedelaa oo guriga la bedelaa oo gogosha la bedelaa oo cuntada la bedelaa oo aragtida bas xataa waa la bedelaa aragtida
aragtida xataa waa la bedelaa haddaad ninkaaga saa u fiiriso maalin si aad u fiirin jirin haddaad u fiiriso oo yidhahdo maanta aad baad ii fiirinaysaaye waxaa weeyaan ii keen waxaan kala garan lahay dheh adig iyo dayaxa kiinee cad adig iyo dayaxa kiinee qurux badan taasaan kala garan lahay dheh waa intaa wax meesha ku jira nolosha laydii sheegayo waa sir wey sir nolosha laydii sheegayo waa sir wey marka qodobadaasi waa qodobo fara badan waxaan ku soo gebagabaynayaa qodob runtii aad u culus oo la yidhaahdo alxiwaar bini aadan baa tihiin waxbaa idinka dhexdhacaya wada hadla isqanciya wada fadhiista carruur baa idinka dhexaysa ood isku khilaafaysaan xoolaa idinka dhexeyo isku khilaafaysaan qaraabaa idinku dhexeyo iska khilaafaysaan cibaadadii buu qof iimaankiisa hoos u dhici karaa wada hadla maxaa noo diidan inaan wada hadalno meel cidla'a ku wada hadalno meel fiican ku wada hadalno i dhegayso waan ku dhegaysan i maqal waan ku maqli hadalka kiisa fiican ii door waan kuu doorayaa taas weeye midda la doonayo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qaabka qiimaha badan eed u dhegaysateen adduunyada ma soo marin gabadh ninkeedu wiilkeedu uu meyd yahay oo aroos gashay gabdhaha muslimaadka ah baa laga helay ummu sulaym radia allahu tacaala canha waardaaha aqriya gabdhihii salafu saalix siiradoodii waad ka faa'iidaysanaysaan allaahumma inaa nas'aluka alcafwa والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كيف تحب زوجك؟ نعم قبل ما وحيت السلين ننكيغا u jeclaan karaa ninkaaga seed u jeclaan kartaa soo saas maaha ninkaaga seed u jeclaan kartaa ninkaaga waxaad u jeclaan kartaa طبعا seen ninkaaga waxaad u jeclaan kartaa waxyaalo aad u fara badan waa muxaadaro dhan wey ninkaaga seed isu jeclaysiin kartaa asagu see isu kaa jeclaysiin karaa ninkaaga seed u jeclaan kartaa ninka wax la xidhiidha hadduu yahay waxaad ku jeclaan kartaa ninka oo akhlaaq badan ninka oo gacan furan ninka oo sabar badan ninka oo dulqaad badan ninka oo ku qadariya ninka oo ku ixtiraama waalidkaa jecel hooyadaa jecel carruurtaada jecel kaa warqaba xaalkaaga tatabuco oo la socda waa waxyaabaha uu ninkaagu aad ku jeclaan karto oo gabadhi ninkeeda waxay ku jeclaan gabadh walba nin dhaqday jeceshahaye ninka deeqsigaa gabdhuhu way jecel yihiin soo saas ma ninka deeqsigaa gabdhaha waa jecel yihiin waxay kaloo jecel yihiin ninka yacnii aragtida dheer ee gabadhiisu garan kara waxyaabaha ay jeceshahay tusaale ninkaagibaa suuqa isu raacdeen dukaan duruucdii ugu dambaysay magacooda maalmahan ma aqaanee waan aqoon jire duruucda ugu dambaysa baad isha la raacday isha baad saa la raacday laakiin odaygaaga waad ka baqaysaa inaad dhahdo ii gad kadibna asagu laakiin wuu garanayaa wuu dareemayaa wuu kuu gadi karaa waa iska tegey maalin kadib buu diricii kuu soo